maanta wuxuu ka gudoomay warqadihii aqoonsiga safiirka cusub ee dalka France iyo safiirka cusub ee dalka Jarmalka. waa laba gabdhood oo safiir ah oo cusub, waxay bedeleen labadii safiir oo ka horeeyay. labada dalba horta waxay aad u tilmaameen labada safiirba oo amaaneen horumarka Soomaaliya ay gaarayso. waxay Faransiisku tilmaameen xiriirka ay Soomaaliya leeyihiin iyo kaalinta ay ka uga jiraan midowga Yurubka. waxay kaloo sheegeen inay yihiin gudoomiye ka yihiin waxaan loo yaqaano Paris Club ama naadiga Paris deynta Soomaaliya cafinteeda kaalin ka geysan kara. Jarmalku iyaguna waxay tilmaameen inay yihiin maaragtay Soomaaliya xiriir fiican leeyihiin, ay kaalmooyin geystaan. waxay tilmaameen inay xagga infrastructure-ka sameynta dariiqyada isbitaalada iyo waxyaabo la mid ah inay maaragtay ay kaalin ka geystaan, iyo gaar ahaan tababarka booliiska ayay sheegeen. waxay sidoo kaleeto sheegeen inay hadda ay Soomaaliya ugu deeqayaan 100 milyan oo dollar lacag dhan oo ay rabaan berito inaan kala saxeexano.